السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaan idinhaynaa xaqiijin warar hoosaadina soo gaaray. Maanta ayaa la sheegayaa saaki in nidaamiye la dhoofinayo. Sababta loo dhoofinayana ay tahay Durdur Media inuu youtube-kii ka jabsaday kadib markii waalidiintiisa iyo odayaal xaafadda xalay iskugu imaadeen oo la weydiiyey oo la dhahay youtube-kan adimaasaan yeeshay haayoo dhahay qaladkan waa iga dhaco dhahay. Kadibna waalidiintii waxaa sameyn waayeen oo youtube-ka ma soo celin kartaa markii la dhahay ayuu dhahay aniga beriyaa ka ma soo celin karo youtube-kan, haddii maxkamadana waaba i qabanay waa ogahay, meeshan ha liga diro. Hadda hirtaan waxaa lagu guda jiraa Cabdiqaadir Nidaamiye sidee ay ku bixi lahaay. Marka warar hoosaadana soo gaaray in ay baahan yihiin ma ogin. Intaas ayaan hadda xaafadda kasoo maqalnay oo shashux yeeraysay Cabdiqaadir Nidaamiye la sheegay in hooyadiisa zaaid uga carootay arrinta uu sameeyey. Maantana Durdur Media oo balantooda ay ahayd inay maxkamad la tiigsato ninkii ahaa Nidaamiye oo ka dhacay youtube-kooda. Nidaamiye horta aad iyo aad loogu xun yahay waxaas uu sameeyey, qof walaal wax lagu sameeyey ma ahan. maanta qof dambe aaminayana ma jiro. Nidaamiye walaalow sharafta waa iska qaaday. Nidaamiye hooyo maku dhalino walaalow saan dadka maxaa u bilay qofku aaminay oo shalay kusoo dhaweysaa maanta xumaysay beritoolana adiga saasoo kaleeta haddii lagu sameyn lahaa maanta noloshaan ay lehed. Xasan Toob waa qof maskiin iska youtube-kiisa ka bariisaysto oo reer ka biishto. maanta walaalkaaga waxaas yarka u quruweysay haddaa youtube-kiisa ka tegaysid waa ku cayna ma is dhahda hore usii jabso. walaalo wax fiican ma sameyn. maanta waa laga xumaada sameysay toobakeen waalidiina ku dhaleen reeraa leedahay. maanta niyo sharafta iska qaaday. haddana haddaa safartid meel walba aad tagtid waa lagu soo qabanaa. sababtoo dadkii social mediaha ayaa meel walba soomaalida meel walba joogtaa. meel walba tagtid waa lasoo sheega ila boorada xitaa haddaa tagtid dad qaaraa la diraa insha allah waa lagu soo qabanaa. war sidaas iyo nabadgelyo. subscribe hadda saar boosi.